afhayeenka golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi ayaa furtay kalfadhiga sagaalaad golaha lixaad ee xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida kaas oo horyaaleen ajadayaal iyo bayaano kala duwan. Afhayeenka ayaa soo jeedisay ajadayaasha kalfadhiga sagaalaad ee golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida. Marka ugu horeysa kalfadhigan waa kalfadhigii sagaalaad wuxuuna furmay maanta 18 taariikhdu ay tahay bishii 11aad. Ajadayaasha horyaala ka gol ahaan waa sagaal ajande. Ajandaha ugu horeeya waxa weeyaan هذا القرارات كي وحويان كان فردي سديدات دقيسيجا وربحنتها كلها إلا بعض كوني تطبيق تمانكا دقيسيجا وربحنتها هانتي دوركا كأفراد وحويان ودقيسيجا هيدها قرصوركا كشنادي وحويان دقيسيجا وربحنتها SRTV كاللي حادي وحويان دقيسيجا وربحنتها وحقبت كحكومة halkaas waa lix ajandaha toddobaadina waxa weeyaan waa bayaanka meelmarinta miisaaniyadda 2018 waxa ku xiga laba bayaan oo kala ah bayaanka nidaamka maamulka maareynta mashaariicda iyo bayaanka go'aanada nidaamka kaydka iskaashiga iyo horumarinta deegaanka Soomaalida bayaanka u dambeeya sagaalaad waxa weeyaan bayaanka qaab dhismeedka weeyaan sagaalka ajanda inoo yaala si guud sagaalka ajande in aan muxuu cod xaqiyeena agalino kadibna ajandayaasha dhan waan ka hal mar baa la wada ansixin kadibna xabad ajandaan u gali doonaa doodaheeduna ay sidoo awalba sharciyadu ay ahayd marka wixii tala bixin sagaalka ajande ama ku daraya xaqiina soo wareejin soo jeedi kadib golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalida ayaa cod waxa ku ansixiyay ajadayaasha kalfadhiga sagaalaad golihiisa lixaad ee golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalida.